السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن الدعوة ديال سود وهذا ومركلة إيه ولكن هذا كرامة هل كان طبعا قد دعونا سنة وبرتا يوتيوب كل هذا كرامة هدي أي تيمر كبوري سادنا صوب وقد تفضل سبسكرايب تنقو شرف ريح جنبنا الكعس نقوقف كوجو ريه يسوق قران المقالة يدعوين كردون حيسان أنا سوق بيو هدي أدورين رجوتنا آدي آد أيضا ما تصنتها هل كان ما توحى نقايا رنتي قضب آدي آد رنتي سوتشي للشغله وشيكada gabadh Soomaaliyeed oo wariye ah oo ku nool haatan magaalada Jigjiga waa gabadha kulmisay dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool ama qowmiyadaha ku nool intooda badan wadanka Itoobiya iyo sidoo kale intay ka baxday ayayba heer caalami noqotay oo waxay kale oo ay markaasi saameyn ku yeelatay ama markaasi ay cad ku yeelatay dadka loo yaqaano Turkida waa gabadh sheekadeeda markaasi soo bandhigtay waa qoraayad saxaafiyad ah isla markaana ka sheekeynaysa sheekadeeda oo runtii aad iyo aad cajiib u ah waxaan filayaa inaad markaasi aad ka heli doontaan bal aan idinku duwo sheekada gabadhan waa runtii mid aad iyo aad cajiib u ah magacayga oo saddexan waa Hana Cabdullaahi Axmed ku nool magaalada Jigjiga ku dhalatay magaalada Herar ismaamulka Herarida da'da dumarka waa la qariyaa taa sheegi maayo waynu ka boodi هاي taa anaga badoonaynin way Soomaha anigoo yar baa wadanka laga kaxeeyay waxaan ku koray waxna ku soo bartay ilaa dugsigayga sare dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi dib baan uga soo hayaanay oo waan soo noqonay dalkan ku soo noqonay intii aan dalka joogayna waxaan deganay intii u badneyd Dirdhaba iyo magaalada Addis Ababa magaalada madaxda dalka Jigjigaan ku soo noqday 2019 bishii June 16keedii halkaas aan ka hawlgalay shaqadeydii aan ku bilaabay waxay ahayd saxaafadda TV-ga Horyaal 24 TV oo ilaa hadda ka shaqeeyo waxaan ahay qoraaga qoray buuga xalkii Afrika ha taariikh nololeedkayga waxaan oran karaa inta aynaan u gelin maansooyinka oo xambaarsan yahay buugan xalkii Afrika waxaan jeclahay inaan su'aal kale ka weydiiyo qoyskiinu sidaan ka warhayo wuxuu kulmiyay qaar fara badan oo kamid ah qowmiyadaha ku wada nool wadankan Itoobiya ama guud ahaan geeska Afrika waa tay bal hadda inta Soomaalida ku bilow qoyskaygu waa qoys aad u ballaaran aan oran karayo waa dadka kali ah ku faani kara Itoobiyaanimada هاي inkastoo su'aal badan halkaas ka iman doonto oo ay Soomaalidu yar nacib yihiin dhahan anagu Itoobiyaan ma nihin laakiin anigu waa qoyska kaliya waxaan ka soo jeedaa Itoobiyaanimada Itoobiya wax la isku cabiidiyay ma waa wax loo dhashay ama dhalmad ah qoyskaygu waxay ka kooban yihiin hooyaday dabcan waa Soomaali aabahay waa Soomaali way markaas 100% Soomaali baan ahay هاي hooyaday waa Herariyad way ayayday iyadu Itoobiyada dhinacaas wayba ka sii baxdaayo iyadu waa Turki way habarrahay waxa jira canfar oo ay hooyaday la dhashay isku hooyayihiin oo canfar ah way habar wadaageeday oo far badan waxa jira iyakana Oromo ah marka xaafadda waa beher sawij هاي ku wada nool sidaad sheegtay de marka qowmiyadihii Itoobiya dhanba guriga ku kulma mararka qaarkood dabcan ha waxyeelada ugu badan ee macnaha aan halkaas iga soo gaadha ka shakhsiyan dadka isku dalka ama isku deegaanka marmar biyar xurguf dhaxmarta waa marka ay Soomaalida iyo canfartis dagaalaan marka oo qadiyadii Soomaalinimo intay qaadaan nag alla kasi haddana intay kibreen bedalkii Soomaalida soo dhigteen markaas nag alla idinka siiga bax guriga habartay soo caydsan marka waxaas waa iska kaftan hanay luqadaha faraha badan leh marka qowmiyadaha badan ee qoyskiinu ku wada jira imsaad ku hadashaado aniga saameyn waxa igu yeeshay aniga familka aabahay baa isoo koriyay anigoo yar oo 2 jir aabahay familka hooyaday gacantooda ka baxay anoo weyn oo 20 jir ana waan ku soo noqday wadankan intii aan wadanka joogay waxaan ka bartay 2 luqadood luqadda hooyaday ma aqaano waa Herari ma aqaano laakiin xogaa dhigta waan ka maqlayaa laakiin Oromo iyo Xabashi inta badan afka wadanka lagaga wada hadlay isku fahmo waa af Xabashiga kaasna waan bartay Oromadana waan bartay
intii aan wadanka ku soo noqday markaa luqadihii wadanka soomaaligii iyo amxaarigii iyo oromadii baad wadataa iyo in yar oo Tigray ah iyo waxoogaa Tigray weliba ha de waxba kaama maqna markaas in yar waxa iga maqan oon aad u xiiseynaya oo isleeyahay 6 bilood ee soo socota aad baratid adarigi waatay buuggaaga markaynu soo noqono xalkii Afrika suugaan fara badan baa ku duugan hal abuurka goormad bilowday adigu hal abuurka Cabdisalaan walaale ma aha wax la bilaabay waa wax qofka Ilaahay uu hibo u siiyo ama uu ku soo dhasho uu dareemo marka inuu wax curin karayo xilligii aan dareemay inaan wax curin karo waxa weeye 2016 hadda 6 sano ka hor baan oran karnaa markii hore waxaan islahaa erayadan aad isku geegeysay talo maxay noqon doonaan laakiin bal inaan wax isku yar aadin karo xilligaas ayaan dareemay buuggan inkastoo saddex maansa ay ku jiraan oo aanad adigu lahayn marka la isku wada qaado badankooda adiga leh imise maansa ku jira 24 maanso saddex un baan markaa lahayn yaana lahayn 22 kale adiga leh ha badankooda maxay ka hadlayaan marba meel baan diiradda saaraa buuggan maansooyinka ku jira waa maansooyin fara badan midba mid ka kalena aniga ahaan fikirkayga ay ka mugweyn tahay dhammaantoodna aan wada jecelahay haddii qiime la dhihi lahaana waa ciyaalkaygii baan dhihi lahaa maansooyinkaygu way fara badan yihiin waxaa ka mid ah maansooyinka buuggan hadda ku jira maanse la yiraahdo xijaab oo gabdhaha ku waarinayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaad moodaa in la yar marin habaabiyay dhaqankeenu diin buu ku saleysan yahay diinta islaamka waliina inagu haysano ku saleysan yahay dhaqankeeni iyo diintiiba inay ka tageen dadkan ay ku dayanayaan ama ay hiigsada isleeyihiin ayna wali gaarin waayo dadkaas haday dhaqankooda si dhab ah u qaadan lahaayeen dabcan kala diin baan nahay laakiin dhaqan wanaagsan oo la xusi karay qaar kood leeyihiin diinteenana waa diin aad u sharaf badan gabdhahana heer fiican gaarsiisay balkaba soo qaaday xabad ukun ah yani jabin in meel ku dhicin ilaalisay diinteenina way ka tageen iyo dhaqankeenu isku saleysnaa kii ay rabeen inay ku daydaan ama ay hiigsadaan ayna gaadhin marka dhaxday heehaabayaan aan leeyahay bal hoos soo dog oo dhaqankeeni meel inaga sharaf badnayd ama in laga ciisan jiray ma jirtay dib u soo noqdo watahay daawadayaal waxaan filayaa markaasi sheekada gabadhan Soomaaliyeed isla markaana maxaan ku sheegayay farqiga uu galay qoomiyado fara badan oo ku nool Itoobiya iyo sidoo kale wadanka Turkiga qoomiyada Turkiga markaasi inaad sheekadeeda ka bogateen sidoo kale waxyaabihii cajiibka ahaa ee sheekadeeda ku aragnay waxaa kamid ahaa hal abuurka ay leedahay ee cajiibka ah iyo qaabka ay markaasi aad iyo aad waliba ugu fiican tahay qoraalka maadaama ay wado buugga saddexaad iminka oo ay laba iyadu khaas u leedahay ay soo saarayso isla markaana ka saddexaad ay wiilkooda qayb qaateen yacni waxa weeyaan qof hibo leh aad bay hibo u leedahay gabadhani markay noqoto dhinaca hadalka waa qof maxaan kuu sheegay sidaad u jeedaan aad iyo aad fasaaxo u leh si fiican hadalka u soo saaraysa oo sidoo kale wariye ah qoraa ah isla markaana maxaan kuu sheegayay qoomiyado badan kulmisay oo dhinacaasna cajiibka ah tan iyo muuqaalkan mid lamid intaan ku kulmina walaalkeenan karaamo kaga tegaya fadlan subscribe tahay nala dhaafina like-ta iyo share-ta iyo comment-iguna waa dhinaciina muuqaalkan kan xiga intaan ku kulmayna nabadgelyo